midnimada gobolada SSC waa muqaddas midnimada gobolada SSC waa muqaddas waa lama taabtaan xornimadooda iyo gobonimadooda wixii ka hor imaadana waajibaadkoodu ka gudanaya hadii ay joogan waxaan akhrinaynaa halkan annagoo ka kooban guud ahaan dhalinyarada ku dhaqan deegaanada waxa weeye SSC warmurtiyeed kaas waxa weeye ujeedadiisu ay tahay inaanu dareenka dhalinyarada ku muujino warmurtiyeedku sidan buu oranayaa bismillaah maanta ay taariikhdu tahay 10kii bishii koobaad 2023 waxaa shir isugu yimi aqoon-yahanka haldoorka dhalinyarada ku dhaqan deegaanada SSC shirkaas oo daaranaa qodobadii ka soo baxay shirkii dhulbaanti iyo fiqishini ee ku taariikhaysnaa 8 bishii koobaad 2023 falanqayn iyo lafagur dheer kadib waxaan soo saarnay qodobadan hoos ku xusan qodob koobaad inaan isaga taasiyayno taacadiyadii kala dambeeyay maamulka Soomaaliland ka geystay deegaankeena mid nafeed iyo mid hantiyeed waxaana ahaan doonaan kuwa lagu xisaabtamo waqtigooda qodobka labaad waxaan taageero mug iyo miisaan lagu muujinaynaa gudidii 33 xubnood ahaa ee masiirka bulshada gacanta ku hayay 12kii qodob ee ay soo saareen sidoo kale waxaan u sheegaynaa inaan garab taaganahay odayaasha dhaqanka isla mar ahaantaana aanu nahay dhalinyaradii dhaqan gelin lahayd go'aamo kasta oo ay soo saaraan una danaynaya bulshada deegaanka lambar 3 waxaan bulshada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo danaynaysa arrinta deegaanada SSC u sheegaynaa inaanayna metelin xubnaha ugu magacaaban maamulka Hargeysa deegaanada SSC isla mar ahaantaana bulshadeena ay hoggaan u yihiin isimada dhaqanka iyo gudiyada odayaashu aanuna kula shaqayn doono taladooda iyo hogaamintooda sariimka number 4 waxaan u soo jeedinaynaa bulshada ku dhaqan deegaanada SSC inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara tafaraaro iyo kala qaybsanaan isla markaana ay muujiyaan midnimo iyo wadajir meel ay joogaan sidoo kale waxay mar kale dhalinyarada iyo aqoon-yahanka deegaanka ku celin doonaan inay maamulka Soomaaliland si nabad ah uga baxaan deegaanada ay ku soo duuleen inta aanay arag cawaaqibtii ay kaydsanayeen ee ay deegaanka taadiga ku hayeen qurux badan waa hadlay anigu hal qodob baan taabanaya halka qodob baan taabanaya waxa weeye nimanka saxafiyiinta isku sheegaya reer Hargeysa iyo reer Burco waxay muujiyeen cadaawad bay muujiyeen ay la qabaan maamulkii taacadiyada halkan ka geystay reer Hargeysa cid kasta oo ay wareysanayaan ama cid kasta oo ay wax xogta laascaanood ay wax ka weydiinayaan waxay ku hogaamiyaan inay yiraahdaan reer laascaanood iyaga isdila oo reer laascaanood isma dilo wixii qadarka alle ku yimaada harcad bay dhacaan miis cadna waa ku dhamaysanaa waxa aanu garan la'anahay aan la yaabanahay waa dhaqankan aanan aqoon ee maamulkaasi nala dhaxyimi sidaa daraadeed anigu waxaan u sheeganaa anigu kale waan is ognahay raali gelinna ka codsan mayno waan is ognahay cadaawada ay hayaan muujtaana waanu aragnaa laakiin waxaan u sheeganaa Soomaalida kale iyo ummadaha kale aan aqoonin inay arintaasi propaganda tahay in ay kiis ayagu tuurta ku sitaan iyaga maamulkoodu ay doonayaan inay la carcararaan dhiigga qofka muslimkaana wax la isku xoqoqo ka weyn mashaqada ka dhacday laascaanood ka dhacday ama gobolada SSC dhamaantii ka dhacday dhinacay doontaba ka dhacda gobolada ay nimankaasi maamulkaasi ay geysteen waa dhiig muslimna wax la isku xoqoqo ka weyn iyagaana tuurta ku sita iyagaana la gaara saxafiyiintaas in badan baanu aragnay iyaga oo dadka ku hogaaminayo qof kasta oo waraysanayaan kulle miyaan reelaas aanad iyaga istilayaa la leeyahay wixii qadare ee yimaada annaga waa wax cad oo aan dhameysano waxna isuma qabno ismana hayno waanu midaysannahay ummad kaliyaanu nahay midnimada Soomaaliyeedna waligeena waa u dhiman jir hadeerna waanu taagan laba qodobuun ama saddex anoo soo koobaya hadalka koow waxaanu marlabaad adkaynayo waanu taageersanahay qodobadii dhignaa ee soo saareen 33 gudida ahayd ee dhulbaahantay iyo fiqishini qodobadaas oo ahaa qodobo aan ku mahadinay
waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala teeda wanaagsan waa inay wadaafaji halka ka haya qodob kasta oo wanaagsan oo dan u ah bulshada deegaanka waan ku taageerinaa ismada dhaqanka garaad caaqilni garbood iyo wax garad waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xilka idin saaray sidaad u gudanasaan wanaagsan halka ka haya ummadda jidka toosan iyo hoggaanka wacan iyo hoggaaminta toosan ku haga oo xilkiina guta oo qodobada soo saarteen adkeeyo oo halka ha uga hadhin in hadal kaliya ha ka dhigana ficil ku dara oo ku dul akhriya maamulka Soomaaliland ee gardarrada iyo waxa weeyaan xaq darrada iyo duulaanka ku jooga carrada dhubahante ama carrada SSC qodobka haddaan halka kaga baxo qodobka labaad aan raacsanayo wuxuu yahay maamulka Soomaaliland ee fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa waxaan leeyahay waxa la yiri dibaaxu baa la yiri intuu fadhiyo galgalinta lama juqajuqeeyo lama hirgeeyo waxaanu nahay libaax fadhiya haan isku kaaya hirgeynina oo haan isku kaaya kicinina sinabada dadku waa xigaal oo wadaag baa la yahay colaad waxa la yiri ninka ay gubaso haduu shaqo gurigiisa shuf bay ka dhigtaa sida awada sinabada uga baxa deegaanada iyada aad ku soo duusheen ee sanadaha badan aad joogteen aad ka geysateen tacaadiyada gabood fallada iyo waxa weeyaan ficilada gardaraysan qodobka halkaas aan kaga baxay asagana qodobka ugu dambeeya waxa la yiri taladu waxay kugu dhowdahay marka lagu tuso inaad tashan karto Soomaalidu waxay ku mahmaadaa taladu waa maray kula gudboontahay iyo maray geed ka saaran tahay iyo maray gondahaga taalo guud ahaan bulshada SSC waxa leeyahay maanta taladu weyna la gudboontahay maanta waxa loo baahan yahay midnimo wada jir tala midaysan tabar midaysan wada socod isu meel loo jeedo in waxa weeyaan loo soo midoobo qodob waxa weey deegaankan dadkan reer SSC dadka degan ee kala duwan qabaal kala duwan leh maamulka Hargeysa iyo Burco waxba kuma laha waxna kama dhisan cidna uma dirsanay nimanka siyaasiyiinta sheeganaya deegaanada ka soo jeeda niman matala maaha dadkan waxa matalay bulshadan odayaal dhaqameedkeeda cid kale oo taladooda daba fariisanaya ma jirto nimanka halka ka yimid ee jooga gooja cadde ee maxaan ku raadayay magaalada Laascanood xiriirada kala laabanayaan cid matalan ma jirto qodobkaas waa qodobka labaad aan adkeynaya waxa weeye qodobadii ka soo baxay qodob kamid ah ee maxaan ku raadayay guddigii 3 oo ahaa nimankaas nabad ku baxaan haddii nabad ku bixi waayaan waxa dhici doonta waa xaqiiqo wadaba in maxaan ku raadayay halkaas Soomaaliland wax loo rajay 3 sano ka sheekeen beesha reer Sheekh Saab in maxaan ku raadayay halka ku soo dhamaanayso maxaan ku raadayay nugaal gudan inta uma ku dari lahaa qodob kale oo maxaan ku raadayay wax xarimo jiraan dadka waa midaysan midnimo ka hadli maayo wax midnimo aan ka hadlay ma jirto dadka SSC yar iyo weyn roolay caamaad wax ka midaysan in masiirkooda ka tashadaan iskana qabtaan wixii fadqalala ku ah wasalaam calaykum qodobadii ka soo baxay shirkii iyo guddiga ka koobnaa 33 nin fuqashini iyo dhulbahante waxa weeye dadka deegaankani haday fuqashini yihiin haday dhulbahante yihiin haday madhibaan yihiin waa dad dulmanayaal ah oo dhiban waa dad gurigoodii loogu yimi oo la rabo in loogu taliyo oo si shaqooba in loogu taliyo la rabo oo aanay doonayn maamulka Hargeysa ka dhisan inuu u taliyayna ma doonayaan maamulkuna wuxuu doonayaa inuu awood ciidan iyo si aan ka fog dhaqanka islaamka ugu taliyo ma aysan wayn dadkani awood balse waxaanu iminka aanu sheegaynaa haddaanu nahay bulshadii gobolada degan waxaanu maamulka Soomaaliland aanu ognahay inaan waxba ka dhisan oo aan shaqo ku lahayn oo gobolkayga 2007 bishii October 15keedii sida xooga kula wareegay iyadana ciidamo ku dagaalamin oo aan ciidan kula dagaalamin sida awoodda ku wareegay iminkana ku jooga inay gobollada nooga baxaan inta aanay nagala kulmin cawaaqib ka xun oo ka dhib badan ay hadhow waxa weeye ka qoomeeyaan bulshada deegaanku way soo kartay in habeen bahal doorkooda la laayo in la xilxidho in waxa weeyaan waxaysan xaq u lahayn lagu la kaco dhibtuna marka ay ku soo karto waxa weeye way waa diiraysaayo de qofku islaamka ay diir bunaxab u leeyahay nimankaas aanu ehelka marna nahay oo mar waxa weeye isku deegaanka aanu nahay inaga is mudan dhibta aad ka geysataan oo wax gurigaaga taala
sida ugu dhaqsiyaha badan sida guddigu soo jeediseen annagu intaanu ficilka aanaba aan la imaan iskaga baxo oo guryihiin iyo hoygiina aada waxba idinkama yaalin laascaanood waa carro dhulbahantay iyo fiqashin iyo waxa weeye ma dhibaan degan yihiin iyo dad kaleba waxa idinka soo horeeya ma lahan Hargeysa gurgiina iyo Burca gurgiina iyo wadamadii aad dhulka adeegtaan iskaga baxo deegaamadiina aada haddii kale waxaad la kulmaysaan cawaaqib xun dadka deegaankana waxaan ugu baaqayaa midnimadu mar kasta inay tahay awoodda koowaad oo aynu adeegsano waxaanu dhulbahantay iyo faqashin iyo dadka kale inala degan ba aynu waxa weeye u muujinayna in aynu midowno oo aynu dadkeena waxa weeyaan inay aynu midnimada aynu ku dhaganaano oo waxaanu anagu taaganahay halkudhiga ahaa ama guusha nololeed ama geeri aakhiro wariyaa diidan midnimada gobolada SSC waa muqaddas midnimada gobolada SSC waa muqaddas waa lama taabtaan xornimadooda iyo gobonimadooda wixii ka hor imaadana waajibaadkoodu ka gudanaya hadii